السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا Soomaaliyeed ama qof walba luqadeena ku hadlaysa aad baan idin salaamayaa magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Cali waxaan doonayaa inaan bilaabo barnaamij aan kaga hadli doono isbuuca soo socda suuqa halkee ayaa laga yaabaa inuu gaaro insha Allah barnaamijkani wuxuu ahaan doonaa mid isbuuc la ah اسبوع walbo aan mar soo geliyo suuqa intuu xiran yahay insha Allah asxaabta waxaan aad idin kaga codsanayaa inaad YouTube channelkayga like saartaan asxaabta kalena aad u share gareysaan isbuuc walbo subscribe ka saartaan isbuuc walbo insha Allah mar ayaan soo gelin doonaa intuu suuqa xiran yahay marka insha Allah maanta waxaan ka bilaabayaa euro USD sidaad u jeedaan euro USD wuxuu joogaa meel aad iyo aad u xasaasi u ah wuxuu joogaa supportka ayuu joogaa waxaa inoo sawirmay saddex candlesticks saddexda candlestick waxay noo cadeynaysaa inuu suuqa uu kor u aadi doono suuqa uuna joogo support marka waxaa aad iyo aad u rajeynayaa inuu suuqa uu kor aadi doono uu gaari doono ilaa iyo supportkeena ilaa iyo inuu gaari doono ugu yaraan 1.152 ever insha Allah lacagta kale aan ka hadli doono waa lacagta Great Britain USD sidaad u jeedeen Great Britain USD wuxuu ahaa mid kor u socdo waxay isku dayeen suuqa inuu soo dhaco way awoodi waayeen dadka iska iibinaya inay soo ridaan marka waxaa noo sawirmay wax la dhahayo flag pattern wuxuu noo sheegaa suuqa inuu kor u socon doono insha Allah waxaan rajeynaynaa inuu suuqani oo soo taaban doono supportkeena oo dib usoo laaban doono kadibna oo jibin doono u gaari doono ilaa iyo 1.279 ever insha Allah ugu yaraan meeshaas inuu gaari doono insha Allah lacagta xigta aan ka hadli doono waxa weeyaan New Zealand USD wuxuu ahaa mid kor u socdo wuxuu jabsaday trend line wuxuu jabsaday supportkan ayuu jabsaday wuu soo taabtay kadibna kor ayuu aaday wuxuu isku dayay inuu kor u jibiyay way suuragali wuxuu taabtay 1 2 3 4 goor ayuu taabtay marka hadda wuxuu joogaa meel aad xasaasi u ah run ahaantii halkan go-aan laguma gaari karo inaad suuqani buy aad ku gashaa ama sell waxaa suuragal ah suuqani inuu hoos usoo dhaco oo marka hoos usoo dhaco oo kadibna u taabto trend supportka u jibiyey supportkana resistance inoo noqdo kadibna uu soo wada dhaco uu soo gaaro insha Allah supportkan xiga ama suuqani waxaa suuragal ah in kor loo celiyo oo kor marka loo celiyo oo haddana soo taabto intuu soo taabto supportkan uu soo taabto oo haddana kor uu wada aado marka suuqani waxaa suuragal ah labadaasiba inuu sameeyo marka go-aanka ugu dambeeya waxaan ku qaadan doonaa suuqani waa inuu marka ugu horeyso waa inuu hoos usoo jibiyaa marka hoos usoo jibiyana inoo sawiraa price action pattern mar walba go-aanka ugu dambeeyo waxay ku fiican tahay inaad ku qaadataa price action pattern waa waxa keliya oo suuqan laga hubo marka suuqan aad buu u fududahay dadku waxay u maleeyaan inuu dhib badan yahay marka suuqani ma dhib badno marka hore waa inuu price suuqa joogaa supportkaada u joogaa ama resistance u joogaa marka kadibna waa inuu price action pattern kusoo sawirmaa marka price actionkaas markuu kusoo sawirmo ama kor baad u gelaysaa ama hoos arrinka ugu fiican waa suuqa waa sida ugu wanaagsan oo suuqa lacag fiican looga samayn doono insha Allah suuqan waxaan rajeynaynaa in kor u aadi doono ama hoos marka go-aanka ugu dambeeya waxaan ku gaari doonaa inuu engulfing pattern iyo rejection pattern waxyaabahaas waa inuu noo soo sawiraa kadib insha Allah go-aan ku gaari doonaa lacagta kale aan ka hadli doono waa USD JPY meel xasaasi ah buu joogaa
kani waa isbuuc weekly trend line. marka weekly trend line ayuu joogaa suuqani. Rejection wuu soo celiyey. waxaa inoo sawirmay doji macnaheesu waxa weeyaan suuqani weli go-aan buu gaaraya. marka suuqani weli go-aan buu gaaraya, inkastoo hadda halkan inoogu sawiran yahay bullish engulfing pattern. suuqani waxaa suuragal ah inuu kor u jibiyo, oo marka uu kor u jibiyo oo soo taabto trend line-kan oo kor usii socdo. laakiin suuqani waxay aad iyo aad u badan tahay inuu soo dhici doono, oo marka uu soo dhacayo uu soo gaari doono ilaa iyo halkan uu soo gaari doono 1.728, kadibna uu kor oo u jabsado oo haddana kor oo usii socdo. saa baan rajaynayaa inuu hoos soo dhici doono, intuu soo gaari doono. sidaa baan u badinayaa insha allah. lacagta kale aan ka hadli doono waa dahabka, waa gold. marka dahabka isagana dahabka maalmahan lasoo dhaafay iyo bilooyinka lasoo dhaafay oo dhan wuxuu ahaa mid kor u socda ayuu ahaa. marka dahabka waxaa aad iyo aad saameyn ugu leh lacagta dollarka. marka isbuuca soo socda waxaa jiro newsyo aad iyo aad u badan ayaa jiro. waxaa news kasoo bixi doonaa lacagta AUD, lacagta Australia. marka xilliga saacadda geeska Africa markay tahay 10 saac iyo bar. marka insha Allah lacagta maalintii Isniin Talaadada ah waxaa war kale kasoo bixi doonaa euro. isbuuca soo socda waa isbuuc waxaa jiro warar aad iyo aad u badan. marka insha Allah waxaan idin dhihi lahaa suuqa aad la iskaga jiro. marka dahabka wuxuu joogaa meel aad iyo aad xasaasi u ah. wuxuu joogaa support line-kan ayuu joogaa. trend line-kii support line-ka ayaa hal meel ku wada kulmay. marka waxaa suuragal ah suuqani inuu kor u sii aado, laakiin go-aanka ugu dambeeya waxaan ku qaadan doonaa inuu inoo sawiraa price action, buy price action, ama haddii uu soo jibiyo insha Allah waxaan isagana go-aan ku gaari doonaa sell price action patterns. marka lacagta kale xigto aan ka hadli doono waa lacagta la dhaho Nasdaq. waa beegan aad iyo aad buu muhiim u yahay. waa beegan waa midka ugu fiican lacag fiican laga sameyn karo. markaan aad buu u halis badan yahay, mid kalena aad buu u fiican yahay. marka halistiisana wuu wataa, faa'iidadiisana wuu wataa. waa midka ugu fiican. marka suuqani dhaqaaqiisa markuu dhaqaaqayo wuxuu sameynayaa intaas pips aad u badan ayuu sameynaya. suuqani haddii aad kasoo gashid oo aad soo raacdid ilaa iyo inta, waxaad ka sameynaysaa 580 pips. waxaad ku sameynaysaa 4 saacadood. aad ku sameynaysaa 4 saacadood waxaad ka sameyn kartaa 590 pips ilaa iyo 600 pips. markaan suuqani wuxuu aad kaga fiican yahay lacagaha kale. waa 4 saacadood keliya. euro USD haddii aad hal isbuuc aad ku jirto xataa intaasoo pips ma sameynayo. markaan lacagtani aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. mar walba waxaa laga gelaa waqtiga aad ku yar, waxaa laga gelaa 15 daqiiqo, 5 daqiiqo ama 1 daqiiqo. laakiin analyze-ka waxaa laga soo bilaabaa ugu yaraan 4 saac ama 1 maalmood. sidaad u jeedaan suuqani wuxuu ahaa waa suuq kor u socda. suuqani waa suuq kor u socda. waxaa laga soo celiyay inta ayaa laga soo kor buu u socdaa. waa kor buu u dhaqaaqay, wuu soo laabtay, wuxuu taabtay supportkan ayuu taabtay. haddii aan ku fiirino Fibonacci tool, suuqana hadda wuxuu joogaa 60 ayuu joogaa. 60 waa meesha aad iyo aad ugu fiican. 60 ama 50 waxaa laga yaabaa inuu soo dhaco ilaa 50 uu soo gaaro, kadibna kor uu usii socdo. ama waxaa suuragal ah inuu suuqani maadaama laga soo celiyay trend line-kii, maadaama laga soo celiyay trend meel aad muhiim ah uu joogo, waxaa suuragal ah suuqani inuu soo dhaco uu soo gaaro ilaa iyo ugu yaraan 74 65 inuu soo gaaro suuragal ah.
ama ilaa iyo inta inuu soo gaaro xataa waa iska suuragal. laakiin suuqani waxay u badan tahay inuu soo dhici doono maadaama laga soo celiyay meel aad iyo aad muhiim u ah. aan ku laabano 15 minute time frame. marka suuqani meesha hadda uu joogo waa meel aad xasaas u ah. wuxuu joogaa support line. wuxuu sameeyey waxa la dhahayo consolidating ayuu ku jiraa, marka weli go-aan buu gaaraya. suuqani hadduu boxkani aad ujeedin hadduu kor ugu baxo insha allah waxaan u gelaynaa buy. waxaan raaci doonaa ilaa iyo marka ugu horeyso inuu kor u jibiyaa. markuu kor u jibiyey candleka ku xigi doono hadduu sii noqdo buy, suuqani insha allah waxaa ka qaban kartaa, waxaad ka samayn kartaa ilaa iyo 428 pip. 428 pip aad bay u badan tahay, marka ugu yaraan intaas baa ka samaynaysaa. ama suuqani haddii uu hoos u soo socdo waxaad ka samaynaysaa insha allah waxaad ka samayn kartaa 330 pip. insha allah wuxuu soo gaarayaa waxaa ka samayn kartaa ilaa iyo waxaa ka samayn kartaa 700 pip. marka targetkan xiga wuxuu noqon doonaa 7810 78 ama targetkan wuxuu noqon doonaa 79 insha allah. aad baad u mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. waxaan idinka codsanayaa inaad pagekayga subscribe ku qabataan, asxaabta kalena aad u share garaysaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baa u mahadsantihiin dhammaan.